بريوهات أهلو يا عيال سبريا هيبد يهدال بانو هندسنا ورام بريوهات أهلو يا عيال وأنا بدي استيال كسود وهذا مركل إيه برنامج كيني فنكي سوغانتا مرتدان هرنا كلهفناها قبل راوحد لنا تدوينا هنهروننا هتراونا جنت وهجنا عدنا ويني مكان عدنا ويني مكان عدنا ويني وقيبتي dhegeystayaal saddexaad ee taxanihii taariikheed ee fanaanka caanka ah ee Maxamuud Cali Burco oo kamid ah fanaaniinta reer Soomaaliland oo aan ku soo gudbinaynay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta taariikhdiisa dhinaca fanka intiina dhegeystayaal socotay qaybihii barnaamijkan ka horeeyay waxa maqasheen sidii uu ku soo galay fanka iyo bilowgiisii fanka waxaana dhegeystayaal dhegeysateen tartankii ugu horeeyay ee heesihii hirgalay oo uu ka qayb galay fanaanka Maxamuud Cali Burco oo ahaa sanadkii 1972 iyo waliba heestii ugu horeysay ee uu qaaday oo aan ku maqashinay barnaamijkaasi toddobaadkan dhegeystayaal halkaasi aan ka sii anba qaadi doono bal hadda waa kan isagoo ka waramaya tartankii ugu xigay kaasi ee uu ka qayb galo ka uha waxa iigu xigtay heesina oo Allah yarxamo uu dhintay horsama geedi raadisaha uu leeyahay oo kooraskeedu ahaa yaa meherka kugu xidha ka ilaasho xumaho haradiyo wanaagiyo kugu qaba xalaalo xajka kugu la ciido xiriirka noqoto tartamadii iigu adkaa intaan soo maray ayay ka mid ahayd heestaas waqtigaan qaadiyo waxa la tartamayaa Bool Cabdilaahi oo fanka intay doonto iiga weyn siday doonto ana arday heesay waan garan waay sababta abuhan dib u soo celiso markaasuu fiiskii intay iyo dheerahan haristo way naga warsaway dhimatay iyo dheeragu soo wariyaal ilaa barooka hayba ku anaga warkay macallimada ka shaqeysa waana hadda baratu waan ku qeeyaa way u jira aniga wanka cidii uma haysto aan ku warunta aniga la tartamay baa warunta وعدنا اللي يودي لنا يقول الله وكا يا الله جه بون باله انا بشي قديم ده توغا يلا قال والله تياتر الجليز والله ما اقول مش على شيء يقول عنك قلت عشان كل واي يلي ما ممكن قال محمود علي برco halkaasi ku muujoojin ka qayb galida tartamada heesaha hirgalay balse sidoo kale waxa uu galay isaguna tartan aad u qiimo badan oo uu la galay fanaaniin caan ah sanadkii 1976 waana tartanka uu qaaday heesta aadka caanka u noqotay ee Dr. Bays ku keen qoray waa heestii iigu dambeysay iyana ma ee rabish kale oo culus bay keento iyana nin afar qof baan ku tartamay hirgal afar qof baan tartamay afartiyo qof nin mooyaane saddexdeeda kale hirgalay nin walba dhowr jeer hore soo galay nin waxaan filayaa saanis lahaa waa ka yaaskaanaysa oo hees dabana muusigan cod ahaanna masraxaana وسكي عنتين أبو كرقريولي نقول أبوها وقال سيدي أنتي قريولي هذه الكومة الناس ليس تقال سيدي تكون حسن القطع بشير علي حسين وإن أهل من أكسين عن شعرايا وتذكروا يقامنا بشير أرشي وقال سيدي إن شاء الله كل أرشي يا مريان هي يا مريان واتانا خطر تلنا مريان يا دكتور وترتر فيلم من مريم ملك على فيلم ما يعلن يا دكتور حتى والله بضي يروح أنا ودنا فرتك جاهين وأن هدي أنت عرفت إذا أنا رايح مع بكرة رايح ورك يا رسولي وحنشكر على الماء وعبد القادر حسن لقي عبد القادر حسن لقي هذه وصدق لنا كلام فك وقصر فيها وعنده عقل المغرب شنو لقى هي حرارة إسماعيل جريو قولش هردو كومان كبل حلم غالي والحلمدي كل واحد يعرف كان يقول شيء وهاستو قاضي ملا إلى لحنك يمسك بيشغل إلى ما قلت له عن جو يوريسنا هاستا وانقال مثل الميوزك وقال معك كمان هذا شيء يعني أورد كتير
شعبنا alla magane meeshaa midhaheedu aad bay u wacan codkuu saarayna waa mucjiso kale miisga u saarayna waxaa meeshaa ninkii kamakatumayay kamaka labtiisii garaacaya ma adarka laxankiiyo codkiiyo miisga keenaya midhi ma keenin marka qof unfan u garanaya un ilagolu dhaafi karin ba waayo waxaan garanayaa habeenka aan aroos joogo ama aan garanayo ama friend aado ama relative ama saaxiib anigu aan leeyahay geeyo heestaa waxaan ugu beegaa saacadda kee gala jabay ka horna ma qaado ka dawey ma qaado waana very slow degan oo aan tarabal badan iyo u baahnayn ciyaartii qabqabtii iyo xaaji waa la nasanaya wey cod waana waa leedahay baasha codka ugu sida waa oreed waan jeclay ilaa imika wallahi kaasta laakiin waxaan sheegaa si waraysi hore ay universal siiba laakiin sidaadoo kalaan oo dadkaan la mid aho dooq baan leeyaho heesan sida dadku u jecel yahay san aniguba heesa u jecela oo sida imika u sheegay heesta inuu qaadi jiray cabdiqaadir xasan nageye tartanka aan la galay ninkaa diyaar ma ahayn bashiir baa wan ahaa anaa tu ahaa tirii nageeye ahaa boore bokor ba ahaa waanu se ka xanaaqnay aniga iyo bashiirba waa tirii yani sida tirii nageeye loo geeyey ee rumayso lacagtii wan iyo tuugaanu ka qaadanay boorka waxba muuqaalin jiray 20 shilin buu laakiin hirgeeda berigaanu ku beeganay laba habeen baanu heesnay habeenkii hore hirgeeda waa xidhnay sanad iyo badh dadna amarka madaxweynuhu soo bixiyey halabka laga go'ay isla maalinta amarka bixiyey baa ogeysiiskii la soo daayay MMCn dowlad jiray maxamed maxamuud jaamac oo weli ah ayaa ii yaalay aniga markaa baaran labadii oo warsaasha galabta kaale idaacadda markaa gelidda aanu gelayno tartanka haddii cidi ka wada hadlayso nageeyaan halkaa u dhignay lacagtiina la siin labadaa habeen oo aan weliga dee hore hirgeeda looga bixin 150 baa la siin jiray tuuga 100 baa la siin jiray tiriiga 50 baa la siin jiray foorka gini baa la siin jiray hirgeeda lacagtii intaas laba habeen ma haysnay 300 baa la siiyey warkiiyo tuuga intaanu min 50 shilin iska jaray oo markaa lacag ahaa dhehgraatay ayaanu boqolkii anagu nageeyay noogu daray anagoo ku qadarinayna inaan naga weynay nacam اخترباس كان قريب من يلا على الموسى نيو أرتدي حرفا وياها أتكلم تاي على وياش رجعني ولا شيء فنانك أرتيست وحشورة بدي واحد يلا سكوكولا بس واحد إنك حرفا كوا قبك بالعوالة على الموسى أطلع السلام يا ويا لو إنه خرب العالم هن إنه مؤلف يعني منوين على المؤلفة ما له يسمى على وانا كان لكن واحد كوا كان نبى مشتري الجناح شتا وبعد ياش يقول ري مش كون أنا برو لا بله مركي جنبنا موارد حيث يعمل وحكي سورة وجناح سكوا هذا من هالسوي حولي بدنا يرو بيقول تشتري بري حاجة تشتري بدل كذا habeen baan soo galay halka baaskiska baroo lagu ciyaari jiray oo xaafadu keesaysiya heesaa oo lagu qaadasho soo jirma lagu tumayo ilaa jirba ka tumayo wuxuu yaali beedka ka xafiday definitely lahaansheedii waxa yeelanaya oo iskale ala la mush halka beed ma hay hirgeeda galabtaan kule NMC wuu ii yaalay hees kale ma hayno yani waa casharka ay baahidu ku bartaa wala ma ilaawad إما قدرت قلت له شنو هسه أصبت له وكوتينه قال له ما سمع أصبت شيء ذات نوع شيء بيرجع لكن بيت كان مو يحكي ما يصير لحن كان يسمع مقاضي سأنا هين ومدلان بقى هو أورلا والنوع هذا اللوكالي أنا لحن استيقظ كان صار بيت كيو خليه ساعة ولا سم يمكن نوع ورسمي جديد يعني كل أورلا شو شيء
ayaan gurigiisa ugu tegey labadii barkii saasaas tahilgalay ina mari waan israacay fooqii idaacadda ee wasaaradda oo istuudiyaashina hoosta yihiin oo jansilar ugu daadego oo godan ku jiraan anagoo hor fadhina ayaan ku yidhi maxaad heesaysaa kuli beyskaa sameeya horta labada beydee dambe gobolka puulbe fadhigaa aanu kaabada fadhin liis baa markaa la qori jiray dadka hilgao gudida markaa marba qof baa loo yeeri jiray haddii tudha la yeeri lahaa inta labada beyd wadwaday waan ka dhicila hees maan galaan tartankaa in xitaa qasab ku wada ay ahayd inay deelqaafaa ku jira ilaa imanka heesta oo aanan markaa garanayn oo abwaankii sahwaalkii oo gudidii iga dhegeysatay martay oo qolaalka nagu dhiibay uu ku maray oo habeenkii markaan tartamayay gudidii sasaka qiimeynaysa ay ku marto beydka labaad maydinaanka geeliya sida dhayda caanaha looma dhaba jacaylkoo laguma dhaashta caashiqa dayal ha u malaynine dhuux iyo lafaha iyo waa wax dhiigga kaa shaqa caafimaadka kaa jara caafimaadka kaa jara waa deelqaaf iminka raadiyo adgesha heesta way taalaa markay saaraan dhegeyso waxay ugu duuban tahay caafimaadka kaa jara deelqaafka waa degdeg iyo checking male ku noqon male war wad iga gaarsiiyaa leeyihiin xarafkaasaa qaldan iminka haddii aan qaado iminka anigoo waa arag dhaafay waxaan u qaadaa markaan qaaday amaan duubayo oo wax dhiigga kaa jira caafimaadka kaa dhima badhadanki aad ku arkaysaad saxiisa markaa horena qaladkaasaa ku jiray labada beydee dambe ninkaana horsama geedi ayaa saaray waxaan qiranayaa qaladka labaad qaladkan anigu qiranaya waxaa weeye kumaan qorin heestii calanle anigu raadiyo muqdisho markii aan stuudiyaha ka duubayey ee iga qorayay yaa midhahle nuux warsame geedi baan ku qoray been sheegi maayo kii aan ka xafiyey beyska iima sheegin calanle inuu leeyahy oo ima odhan inta kanaanu aqanay xamar joogi ayaan ku qoray halanle wallahi laba jeer bay iga ganaqday isoo fadhiisay igoo ganaqsay heestan maxaad ninkaan u qortay 2 times malbalbadaa ahayd marina barcatahay oo aan labadaba si waan u qancina kuri warniyo aniga saaseeyahay haddaba keen qaadan qaadka markaa halkaa aan ku qoranaya waxa weeye kii xeelku dhigaya heesta kumaan qorin kii labada beydee dambe oo aan weliba sii laab jeclaaday kan hadduu dhigato galqabu ka bilaabay ma uurka weydiibu kusoo xafilay kalna wuxuu ka bilaabay un maydhanaanka geeli wadadii tubtii un ayuu saxarsagalo quruxle inaha dee kama ku qor kana abwaanoo tiyaatarkii joogo sumcadda aad ugu kordhin karaysaa kan waxtar uga dhig laakiin iminka raadiyo adgesha waan uga bedelay hadduu dhuwato geelqab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha dhuubtaaye ana cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay suken dhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay suken dhigay dakhtar bay suken qori adna weheli madhaadan dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay suken qoray adna weheli madhaadanid adna weheli